السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حسابت نلا صعت إليس IT كسر دوّد يعني لأنها عشر كأن ما أنتكو قادرين إنه عشرة ذن أكمل محا بدري كرا Windows Operating System كا أما alternative to Windows Operating System حليرة مركا Windows سيدي سيدا الله صعتان وحنا نكسينا يا وحوق غير أو عشر كنا نكسب سنة هاي تاريخ كوبنا شركة مايكروسوفت. شركة مايكروسوفت وحا isla curiyay laba nin oo Mareykan oo la kala yiraahdo Paul Allen and Bill Gates sanadka markuu ahaa 4 Abriil 1975 muddo hadda laga joogo 45 sano iyo 4 bilood waxay shirkaddan ku guuleystay in ay suuqa kombiyuutarada dadka isticmaala personal computerka la yiraahdo ama marka loo soo gaabiyo loo yaqaan PC ay la wareegaan maanta ay shirkaddan haysataa mid dhan 76.5% halka shirkadda Apple Mac ay haysato 17%. waxaa kaloo soo raaca oo kaleeto shirkada kaleeto sida hadda u jeedaan 2072 ya halkan uga jeeda laakiin anigu waxaan haystaa 72.9 saa u jeedaan operating system Android ka laftigiisa waa mid ku dhisan Linux ka iyadana wax yar un bay haystaa oo I think is 1.8 laakiin waa operating system lagama maarmaan ah marka muhiimadda ugu weyn waxa ay tahay oo aan maanta aan u soo qaadanayno ama nagu kalifay in aan arintan sameeyno waxay tahay hor inta aanan u guda gelin casharkeena waxa ay tahay adeegyada ugu muhiimsan ee dhaqaalaha badan ka soo gala shirkadda Microsoft waxa yihiin waa Windows Operating System-ka Microsoft Office-ka oo ka kooban Microsoft Word, Excel, Access, PowerPoint iyo Outlook oo horena aan ku sheegay oo aan Microsoft Office-kaasna maxaa bedeli karo oo aan hore LibreOffice aan ugu soo gelinay waxa kale oo aad shirkadda ay uga sameeysaa dhaqaale badan MS Microsoft Xbox Entertainment and Gaming oo kuwa lagu ciyaara ah Bing oo asagana ah search engine oo u dhigmo Google ko kaleeto Microsoft Mobile waxa ay leeyihiin oo la tartamaan shirkadaha kaleeto oo telefoonada ah Microsoft Azure ayaa jira oo cloud service platform ah cloud wax kala ma aha waa un internetkii oo loo sameeyay dadku in ay ka soo gali karaan shabakada internetka halkaas oo lagu abuuray servero gaar ah oo ay dadku ijaaran karaan oo waxa ay doonaan ku qabsan karaan ayaa la yiraahdaa cloud service kas dhaqaale badan ayaa hadda ka soo galo laakiin cloud service ka ama waxa hadda haysta shirkadda Amazon ayaa haysta Amazon Web Services iyo shirkadda Microsoft iyo Google saddexdaas ayaa ah market leader waa xagga marka laga hadlayo maaragtay cloud-ka shirkaddan waxa lagu eeday inay ka ganacsato xogaha gaarka ah ee macaamiisha iyadoo si cad u sheegtay in ay la wadaagi doonto kuwa ay isla shaqeeyaan shirkadaha iyo kuwa dawladda qaasatan hay'adaha saddex xaraflayaasha oo si qarsoodi ah wixii ay doonaan uga bixi karaan isla Windows-ka oo leh backdoor ama albaab dambe markaad iibsato Windows Operating System-ka milkiyada adiga iskama lihid ee waxa tahay isticmaale oo kaliya sida ku cad terms and condition of use si looga gudbo carqaladaha shirkad shisheeye waxa muhiim ah in la fiiriyo xal maxaa bedeli kara halkaas ayaan ka duuleynaa Ilays IT iyadoo hadafkaas ka duuleysa ayay baaritaan dheer samaysay idina soo diyaarisay sidii la isaga tuuri lahaa eeryada gumeysiga xal ku meel gaar ah balse aan isku day doono mid anaga noo gaar ah oo afka Soomaaliga ku soo baxo hadii alla idmo faanole farakama qodna hore loo dhihi jiray waxa isku soo dubariday waa Ilays IT ama Daawud Ali Ahmed xuquuqda daabacada oo dhan waxay u dhooran tahay diyaariyaha ama milkiilaha waa loo isticmaali karaa looma isticmaali karo si ganacsi ah waa la sii faafin karaa laakiin waxa shuruud ah in magaca milkiilaha la xuso halkaas marka uga gudbin arintaas waxa nooca oo aan u jeednaa Windows-ka sidiisaba waa operating system caan ah dadkuna aad u badan yihiin saamiga suuqana 72% haysto laakiin dhibaatooyinkiisa xagga xogaha hadii loo fiiriyo shirkadaha shisheeyaha ah ee iyada iska leh ninkan gaarka ah shakhsiga ah ee asaga leh ee hadda adduunka taagan wada talaalaya waxyaabahaas oo dhan ayaa waxay keeneen sida hadda aan hore idinku soo carabaabay in la helo xal halkaas oo ah maxaa bedeli karo
marka waxaan helnay Linux Mint. Linuxna hore ayaan uga hadlay. Linux Mint-ga waxa waaye sida la leeyahay waa popular desktop oo Linux distribution ah, millions dad ayaa isticmaalo. marka waa mid agabkiisa uu u dhan yahay, haddana ah bilaash, open source ah, community driven ah. marka Linux Mint wuxuu ku dhisan yahay Debian Ubuntu. waa mid mataqaanaa aad u fiican, safe ah, reliable ah. wuxuu kaloo u baahnayn oo laga maarmaan ah no antivirus, no anti spyware. waxyaabaha aad ogtihiin waxay ka mid yihiin dhibaatooyinka maanta internetka ka taagan maadaama ay korortay isticmaalka shabakada internetka. marka sidaas daraadeed waxaan isku dayi doonaa Linux Mint in aan inta soo download gareysano oo aan gashano computerka si virtualization ah. siduu u egyahay Linux Mint? Linux Mint-ga wuxuu leeyahay 3 qaybood. 3da qaybood oo uu leeyahayna waxay u kala baxaan Cinnamon Edition, Mate Edition iyo XFCE Edition. 3dan u kala baxaa, waa screenshot ayaa kamid ah. Linux Mint-ha waxaad ka soo download kartaa markaad tagto halkan. waa 1.98 gigabyte. halka wadanka aad joogto meesha kugu dhow ayaa sameynaysaa. maadaama hadda anaga aan Ingiriiska joogno, waxaan tagnay oo aan ka soo download gareystay University of Kent aan ka download gareystay maadaama ay ii dhowdahay wadanka Ingiriiska iyo London aan joogo. sidaas daraadeed qof walba waxa ay mudan haddaa Mareykanka joogto Mareykanka ka download gareyso, haddaa Jarmalka joogto Jarmalka ka download gareyso, iyo ama world waad u jeedaan dhammaantiis. 3 qaybood oo u qaybsamo oo macnaheedu flavorka ahna waa Cinnamon, Mate, Cinnamon Edition, Mate iyo XFCE. marka sidaas daraadeed waxaan soo download gareysan doonaa VirtualBox oo aad ka soo download gareysan kartid halkan. sida halkaana ku cad VirtualBox ayaan soo dejisan doonaa iyo Linux Mint. kadibna computerka ayaan ku xirin doonaa anagoo isticmaalana virtualization-kana waa lagama maarmaan in aad ogtahay waa hab khayaali ah ee computerkaaga computer kale looga dhex abuuri karo. laakiin waxaa muhiim ah in marka ugu horeysa aad u fiirsato computerkaaga sidiisaba agabkiisa, sida haday noqon lahayd processorka, haday noqon lahayd memoryga ama xusuusta ama RAM-ka, inuu at least 8 gigabyte leeyahay si aad ugu sii kala qaybisid. waa in aad haystid qaradii ama hard diskihii wax ku banaan. computer 2 gigabyte RAM-kiisa yahay way adag tahay in virtualization loo isticmaalo, waana laga maarmaan. waxaa kaloo muhiim ah iyadana in aad computerkaaga taqaanid processorkiisa si aad u ogaatidna aad tagtid this PC right mouse click aad ku dhufato property aad tagto. markaad property tagtana waxaa kuu soo baxaya 32 bit ama 64 bit. saa u jeedaan aniga waa 64 bit. saa halkan uga jeedaan waa typekiisa, system typeka waa 64. waana laga maarmaan in aad markaas soo download gareysanaysa aad taqaanin. haddana badana 64 ayay u badan yihiin. taas waa midda koowaad. si aad virtualization u hesho waa in computerkaagu uu leeyahay agabkii loogu talagalay ama resourcega marka waxaa ka mid ah memoryga computerka xusuustiisa ama RAM-ka, processorkiisa in uu waxoogaa yara xawaarihiisa dheereeyo, allahu mustacaan, ama qarada computerka. intaas markaan ka gudubno waxaan isku dayi doonaa inaan soo download gareysano. anigu kulley waa soo download gareystay. Windows hostiga tagaysa wakana uu ku sheegaya. marka hadda ma download gareynaa maadaama aan hore usoo download gareystay. Mint-gana waa tan kuu sheegay. Linux Mint-na waxaan soo download gareystay. maadaama Ingiriiska aan joogo, hadba wadankii kuu dhow ayaad ka download gareysanaysaa. Ingiriiska maadaama aan joogo waxaan ka download gareystay University of Kent Mirror Service. halkaas markaan uga gudbo waxaan tagayaa isku dayaa in aan geliyo computerka maaragtay VirtualBox-ki. si aan VirtualBox u geliyo waa kan soo download gareystay. double click baan ku dhuftay. waan sugaynaa halka uu nala aado. marka waka intaas ayaan mataqaanaa waka next yes install. halkaas ayuu ka socdaa. marka waxaan isku dayaynaa maadaama uu socdo in aan waxoogaa ayuu qaadanayaa. dib baan ugu soo noqon doonaa toos. sida la socotaan Oracle VirtualBox-ka oo
versionkiisa oo 6.1.20 waa unoo dhamaado waa complete. waxaan leenahay soo daar. marka waxaan isku dayaynaa u soo socdaa inta uu kasoo baxayo. waa kana uu noo soo galay. marka sidaas daraadeed waxaan bilaabaynaa virtualizationkii. si aan u bilaabnana waa in aan new tagnaa. marka waxaan u bixinaynaa Linux Mint ayaan u bixinaynaa. next ayaan leenahay. waxaan siinaynaa at least memoryga ama xusuusta at least 4 gig aan siinaynaa. ajeedin 4 gig aan siinay. I think it's more than enough. 4 gig waa memoryga, ramka, memory size ujeeda. next ayaan dhahay. defaultiga caadiga ayaan qaadanayna create virtual hard disk. virtual dhamaantana raacaysa VDA ama virtual box disk image. dynamically inuu u sameeyo waaye, fixed ma aha. sidaas daraadeed halkan waxaa noo taagan imisa ayaan siinaynaa. waxaan siinaynaa at least 20 gig aan siinaynaa. 20 not more than that. 20 aan siinaynaa. waa hard diskaha user. okay, halkaas ayaan ka abuuraynaa. waa uu noo soo baxay Linux Mint. waxaan isku dayi doonaa inaan sameyno start. halkan wuxuuna weydiinayaa mintiga Linux mintiga aan soo download gareysanay xaguu ku jira. marka waxaad riixaysaa halkaas. waxaad leedahay add ku dar. waxaan tegaynaa halkii aan ku download gareysanay oo ah waa kana cinnamon. saa ujeedaan 64 bit. okay, kaasaan dooranay. choose. okay, start. marka waa uu wadaa virtual boxka. waxaa lagu samaystaa Linux Mint start. waxaan leenahay start. waa uu wadiyaa. sidaa ujeedaan running ayuu ku jiraa. marka waxaa lagama maarmaan ah in haddii ilaahay ku royaa Soomaalida inteeda aqoonta leh isku daydo in la helo mataqaanaa kaadir farsamo yaqaan ah oo xataa wadankii looga maarmo wax walba oo dhinacyadan ah IT-ga ee aanan shisheeyaha mar walba daba taagnaanin. laakiin la isku dayo system anaga noo gaaro oo afkeena hooy ku soo baxo. anigu qorshahan qabo waa kaas oo fikirkeeda shakhsiga ah. marka Linux Mint waa ujeedan LM uu noo soo socdaa. waan ku jirnaa. wuuna soo baxaya. marka sidaas daraadeed waxaa lagama maarmaan ah isku filnaansho in dhinac walba laga gaaro oo muhiimna ah maadaama aan nahay dad muslimiin ah. muslimiintana aysan marnaba aysan hoos tegin qoomiyada ama dad kaleeto. ay noqdaan dad iskaga filan dhinac walba. hadday noqon lahayd xagga wax soo saarka. ilaan dhul dihan baa ilaahay siiyey khaasatan dadka Soomaaliyeed. ay leeyihiin inay samaystaan hubkooda gaarka u ah, daawadooda iyo cuntadooda ay soo saaran karaan. waa saddexda ugu muhiimsan adduunka. saddexdina mataqaanaa ilaahay buuna siiyey dhul dihan oo weyn oo naga soo kala harayo. marka inta uu ku socdo geedkan ayaan rabaa intaas inaan idinku guubaabiyo. marka Soomaalida geeska Afrika ama qorax ka soo bax geeska Afrika waxa ay noqotay bulsho ayadii isku karan oo ayadii la isugu dhiibo qoray. haddana dariska iyo ummadihii adduunka kalena ay usoo durbaantumanayaan sidii ay u lqi lahaayeen. marka aan ku koobnaado maaragtay gelinta ama samaynta qaybtan. taas waxay iska ahayd guubaabo inta uu mataqaanaa kasoo baxayo virtual boxka oo nooga soo baxayo. marka weli waa uu socdaa. marka
waxaan sugaynaa in uu noo soo baxo. waa noo soo baxay sida aad ujeedaan hadda. okay, waa uu soo baxay Linux Mint. okay, marka Linux Mint agabkiisa oo dhan waa uu dhan yahay. sidaan hore idinku sheegay wuxuu leeyahay browser Firefox ayaa already ku jiro. waxaa kale uu leeyahay OpenOffice wax la yiraahdo ama LibreOffice oo leh Excel LibreOffice calculator uu leeyahay. dhammaan waxyaabihii kaleetii agabkiisa waa u dhan yihiin. hadda haddii aan isku dayno inaan aadno internetka, waxaad riixaysaa halkaas Firefox-ka. waxaan siinay 4 GB RAM. computerka ayuu wuxuu la isticmaalayaa agabkiisii ama resourcigiisii isaga ku jiray. marka computerkii baa computerka laga dhex abuuray. waxaan fiirinaynaa internetka ma noo shaqeynayaa. saas daraadeed haddaan arki doonaa. wuu shaqeynayaa sababtoo waxaan isku dayi doonaa inaan tagno website-yada caanka ah sida maxaa la dhihi jiray. ma isticmaalo aniga Google as a search engine. waxaan isticmaalaa duckduckgo.com ayaan isticmaalaa. meeshii aan ka isticmaali lahay Google ma isticmaalo. idinkana waxaan kula talinaa inaad duckduckgo ay isticmaashaan as a search engine as alternative oo ah mid aan haddii adduunka siisaba mid meel nabada ma jirto, laakiin waa la kala roon yahay. haddii laba kala daranna mid dooro waa. marka duckduckgo waa uu ka fiican yahay Google. anaana cashar kaleeto idinku soo qaadan doona sababaha uu mataqaanaa uga fiican yahay. marka duckduckgo waa very important. waxaa samayn kartaa add to duckduckgo to Firefox ayaa dhihi kartaa. oo mar walba waxaa samayn kartaa oo kaleeto intaad tagto qaybta optionka waxaad tegi kartaa abi preference-ga waaye. sida ujeedin search engine-ka halkaasaad ku dhufanaysaa. markaa ku dhufato duckduckgo waa kugu jira. soo ujeeda Google-na waa la dhihi karay ama Wikipedia. privacy-ga iyo security-ga isagana waa muhiim inaa strict tiraahdid halkan inuusan password-daada uusan sameynin. marka saa ujeedaan muhiimadda waxa ay ahayd inaan idin tuso inuu shaqeynayo internetka. tusaale waxaan soo qaadanaynaa Google laftigiisa google.com. bal arka wuxuu na weydiin doonaa Google saan u maleynayo maadaama marka ugu cusub aan nahay. soo ma jeedaan inuu na weydiinayo waa ina before you continue to Google search waa ina shuruudahan ogolaato sooma. marka waa iska daynay ma rabno. waxaan isku daynaa inaan aadno website kaleeto oo Soomaalida sida hiiraan.com. marka website-ka shuruud baa ku galaysaa. shuruudaasna waxaa ka mid ah warka halkan ku qoran tirada ayuu ka badan yahay. waxayna u badan tahay in uu ku yiraahdo waa ujeedaan waa shaqeynaya. muhiimadeena taasay ahayd. bal tan aan halkaas ku dayno. waxaan isku daynaa marka inaan tagno meelihii kale iyo sida aan idin sheegay in Linux Mint-ga uu yahay mid agabkiisu u dhan yahay oo muhiim ah oo lagama maarmaan ah oo aan u baahnayn antivirus oo aan u baahnayn waxyaabahaas kaleeto oo dhan. marka arrimaha ugu muhiimsan waa kuwana waxaa ka mid ah oo dadku badan ay ku shaqeysaa inay internetka aadaan iyo in ay wax ku qortaan. marka LibreOffice haddii aad tagto wuxuu leeyahay oo kaleeto isna presentationka waa ujeedaan maadaama hore aan idinkugu sheegay. wuxuu leeyahay sidii Word-kii, Excel, Access, PowerPoint-ga ayuu leeyahay laakiin magacyo kale ayuu wataa. laakiin way isu dhigmaan oo way isla shaqeyn karaan. oo compatibility-ga marka aan ka hadlayo haddii aad Microsoft Word wax ku diyaarisid LibreOffice Write-ka ayaad
mataqaana ku qori kartaa ama aad wax uga bedeli kartaa labadu way isla shaqeynayaan way isu qalmaan marka wada shaqeynta xaggeeda ama compatibility-ga waa uu naga diiday nasiib darro terminate waa ka xunnahay inuu ka baxay geedkii labaad ayaan leenahay start sababtoo u noqon ma garan karno sawjeedan aborted ayuu yiri malabaad waa uu naga diidan yahay sawjeedan Linux Mint choose start waxaan ku yareynay memory-ga 4 GB siinay okay taasaan u maleynayaa marka intuu ka imaanayo oo kaleeto waan sugeen marka intuu computerka socdo waxaan idin sheegayaa asturnaanta ama privacy-ga shirkadda Microsoft waxa ay leedahay sida halkan ku qoran Cortana baa la dhahaa ay leedahay oo Cortana waxaas qaba leedahay oo voice activated ah oo codkaaga inta duu wax ku qabanayo sida Apple ko kaleeto iyagana leh marka muhiimadda ugu weyn waxa ay tahay oo dadku ay walaac weyn ka qabaan waxay tahay shirkaddan inay leedahay disclosing or sharing your personal information. The following is excerpt from the privacy policy. We will access, disclose, preserve personal data including your content such as content of your emails, email kaaga waxa ku jira other private communication kaaga or files in a private folder. When we have a good faith belief that doing so is necessary to protect our customers or enforce the terms governing the use of the service. Marka halkan problem ayaa ka taagan oo ah inay shirkaddan ay ku xadgudbayso dhammaan arrimaha xogaha ku gaarka ah ee asturnaanta ah ee aad tahay nin badeeca ama adeeg ka gatay adeegga ka gatay ayaa xataa waxa ka tahay isticmaal matid milkiile marka tan waxay ka mid tahay waxyaabaha nagu dhaliyay in aan mataqaana aan arrimahan sameeyo waa u galay waa ujeedaan waa u shaqeynayaa sida ujeedaan marka hadayta waxa dhacay maybe problemo kale iska jiro I don't know marka maybe inuusan jirin marka waxaan isku dayaynaa in aan applicationada marka la gelinayo oo kaleeto maybe LibreOffice-ka inuusan si rasmi ah uusan u soo wada degin marka hadda halkaan ayaan ka akhrina karnaa generating cache one moment sida ujeedaan marka waxaan maleynayaa resource-ga ayaa ku yar ma hubo waxaa la yidhahdaa software manager marka ma internetka xaggiisa ma garan karo laakiin waa uu shaqeynaa waxaan isku daynaa inaan sameyno dual boot wax la yiraahdo oo ah computerkaaga in ay ku wada shaqeeyaan Windows-ka iyo Linux Mint-ga ay kala qaybsadaan oo markaad computerka daarto uu ku siiyo ikhtiyaar ah in aad ama Linux Mint aad daarato ama Windows aad daarato ka hor inta aan computerka uusan aadan u sii gadagelin taasna waxaa la yiraahdaa dual boot waan sameyn doonaa halkaan ayaa laga download gareystaa dhammaan saa ujeedaan internet accessories office balaan fiirino office inuu ku jiro I think office waa noogu jiraa halkaan waa halka laga download gareysto waxyaabaha kaleeto waxaa kamid ah GIMP oo ah oo u dhigan Photoshop-ka marka waa kuwaan dhammaantii VLC oo wax lagu dhageysto fiidiyoyada marka halkaas ayaan isaga daynaynaa waa noo shaqeynayaa waa ujeedaan office-ka ay hadayta ahayd midda noogu keentay LibreWriter hadayta xasuustaan waxa uu sameeyay computerka xogaa aborted crash uu nagu sameeyay haddana ku noqon doonaa ma sheegi karo laakiin mar kaleeta ayaan usoo noqon doonaa haddii Ilaahay yiraahdo marka waxaan idin rajeynayaa in casharkan aad ka faa'iideysteen iyo xogaha gaarka ah laga maarmaana ay tahay in aad subscribe share and like it asartaan wixii su'aalo ah qabtaan ama isleedihiin tayada waxbarashada waa lagu soo kordhin karaa ama erebixinta afka Soomaaliga waa lagu soo kordhin karaa waxaad noogu soo gudbin kartaan Ilays IT
@gmail.com ilays waa double l halkaas ayaad noogu soo gudbin kartaan. waxaa kaloo idin sheegayaa oo kaleeto oo lagama maarmaan ah in xuquuqda daabacadda iyo waxa aan soo diyaariyay dhammaanteed aan loo isticmaali karin si ganacsi ah ee loo isticmaali karo in dadka looga sii faa'iideeyo. haddii loo isticmaalayo ganacsina waa in idan annaga ilays nalaga haystaa. haddii kaleeto waa copyright, xuquuqda annaga ay noo dhooran tahay. wixii kaleeto oo ku saabsan in qofku uu uga sii faa'iideeyo dadka kale ee Soomaaliyeed ee ardayda ah ama wax baranayso waa mid bilaash ah oo aan waxba uga baahnayn. laakiin haddii ay noqoto ganacsi iyo ku takrifal xuquuqda waxay u dhooran tahay ilays IT. marka saas daraadeed waa in aad marka hore idan soo weydiisto. haddii ay noqoto sii gudbinta dadka kale inay ka faa'iideystaan waa mid bilaash ah oo tabaruc ah. marka intaas ayaan idin soo sheegayaa. marka waxaan ka codsanayaa in ciddii markaad saas leedahay way ka faa'iideysan kartaa aad usii gudbisaan. marka maaragtay waa kan LibreOffice uu noo soo baxay saa ujeedaan waa mid wax lagu qori karo oo Wordku u dhigmo oo kana sii fiican. marka khayr baan idin rajeynayaa saa u dhantihiin. waxaan idin rajeynayaa maalin wanaagsan. fadlan subscribe-ka iyo sharing-ka hala sii badiyo si aan tayada iyo aqoonta aan usii gudbino. aan iskugu dayno inaan idinla qaybsano, iskuna dayno inaan afka Soomaaliga kusoo gudbino, iskuna dayno in la helo mustaqbalka kaadir farsamayaqaan oo Soomaaliyeed ama software annaga noo gaar ah oo afkeena kusoo baxo oo aan uga maarano shisheeyaha. taasu waa hadafka aniga aan leeyahay. waxayna ka mid tahay himilooyinka aan rabo inaan hiigsado. alxamdulillah. marka insha allahu tacaala waa la heli doonaa. bishii soonkaa lagu jiraa. waxaan ilaahay nooga wada rajeynaa dhammaanteen in ilaahay cibaadada iyo soonkeena iyo salaadeena naga aqbalo oo kuwii lagu xoreeyo jannadana ilaahay siiya. ilaahay nooga dhigo dhammaanteen meel kastoo aan joogno. balaayada iyo sharta jirtana ilaahay naga xijaabo. waadin salaam waa ilays IT oo isku soo dabarada Daawud Cali Axmed. waadin salaam dhammaanteen meel kastoo aad joogtaan. wabilaahi tawfiiq.